السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر هذا فيديو مانتا aad baan idin salaamayaa. Bismillaah. Maanta topic-kan wuxuu ku saabsan yahay xanaanada ciyaalka amase nursery-ga, waxyaalaha carruurtu ay ka faa'iidaan ayuu ku saabsan yahay. Waxaan topic-kan idinla qaybsanayaa waxa weeye waalid badan baan arkay oo ciyaalkooda aan ku darin xanaanada oo markay full time-ka bilaabaan oo iskuulka ku dara. Marka ilmaha xanaanada lagu soo daro iyo ilmaha kale way aad bay u kala duwan yihiin. Ilmaha xanaanada lagu daraa wuu ka aqoon badan yahay ilmaha aan lagu darin. Ilmuhu marka xanaanada lagu darin iskuulka wuxuu bilaabaa isagoo aan luqadii garanayn, aan garanayn sida loo fadhiisto, ciyaalka loola fadhiisto, aan garanayn sida ciyaalka sida macallimada loo dhageysto. Macallimada dhib badan bay kasoo gaadhaan markay carruurta xanaanada lagu darin. Marka xanaanadu waxay ku fiican tahay marka ugu horeysa ilmuhu kalsooni buu ka qaadaa iyo adayg, more independent buu noqdayo, wuxuu la qabsadaa isdhexgalka iyo carruurta kale sida loola cayaaro ku bartaa. Wuxuu kaloo ku bartaa ciyaalka loola saaxiibo ama sida saaxiibada loo samaysto ayuu ku bartaa xanaanada. Wuxuu kaloo ku bartaa luqadda ayuu ku bartaa, luqadda iskuulka lagaga hadlo ayuu si fiican ugu bartaa. Hadhow markuu full time waxbarashada full time-ka markuu hadhow galana way u fududaataa, fahamka u fududaada iyo sida macallimada si fiican isu fahmaan. Waxbarashaduna aad bay u fududaataa. Wuxuu kaloo ilmuhu ku noqdaa ilma resilient oo isku filan oo adag oo hadduu dhaco aan ooyeyn oo aad iyo aad u degan buu ku noqdaa. Wuxuu kaloo la qabsadaa sida wax loo share gareeyo ama carruurta kale wax loola qaybsado oo toyga carruurta kale loogula cayaaro. Oo wuxuu noqonayaa ilmahan wax kasta ku ooyan oo degan oo sugaya marka isaga la gaaro time-kiisa ama waqtigiisa la gaaro buu noqdaa. Haddii laakiin xanaanada lagu darin hadhowto sharing-ka carruurta dhibaato badan baa soo kala gaadha oo ilmo kasta wuu kala cararaa toyga, ilmo markasta ooyo cadhaysan buu noqdaa. Marka runtii xanaanada aad bay ugu fiican tahay ciyaalka. Wuxuu la qabsadaa ilmaha xanaanada lagu daraa sida carruurta loola cayaaro, sida saaxiibada loo samaysto, communication-ka iyo sida dadka loola hadlo ku fiican buu noqdaa. Marka waxbarashada aad ugu fududaato, waxbarashada la qabsadaa. Markuu full time-ka gaadho full time education markuu gaadho wuxuu already noqdaa ilmo diyaara oo waxbarashada u diyaara oo maskaxdiisu ay degan tahay ayuu noqdaa. Laakiin haddaan xanaanada lagu darin hadhowto wax ku adkaanaysa luqadda, wax ku adkaanaysa waxbarashada. Waxay aad xoog u saaraan macallimada nursery-ga dhiga sida ilmaha loo maaweeliyo, sida loo ciyaarsiiyo, sida wax loo miiso. Waxay ku bartaan xisaabta iyo wax miisida, waxay ku bartaan alifbeetada, waxay ku bartaan sharing-ka, waxay ku bartaan waxyaalo badan bay ku bartaan xanaanada ciyaalku. Marka xanaanada runtii aad bay ciyaalka ugu fiican tahay. Waalidka waxaan ku oran lahaa haddaad doonayso inay Soomaalida ciyaalkiinu bartaan guriga xoog aad ugula hadla markaad joogtaan, laakiinse chance-koodana ha u diidina. Xanaanada iskaga dara wax badan bay ka baranayaan, wax badan bay ka faa'iidayaan. Waxba ha ka warwarina. Nursery-ga ciyaalka aad baa loogu ilaaliyaa. Macallimada waxbarasho sare haysta ayaa jooga oo la dadaala ciyaalka. Marka waxba ha ka warwarinaan, iskaga dara idina waqti bay helisaa iskaga nasataan oo wax ku qabsataan inta ilmuhu idinka maqan yahay iskuulka. Idina wax iska qabsada oo guriga iyaga soo shaqaysta oo meelaha naftiina waqti siiya. Ilmahana u oggolaada waqti ku cayaaro oo saaxiibo ku samaysto oo iskuulka xanaanada ku galo ama nursery-ga ku joogo. Marka waxba ha ka warwarinaa. Waxna ha ka shakina, waxba kuma dhacaan carruurta nursery markay joogaan. aad baa loo ilaaliyaa. Waxna way ku baranayaan, luqadda si fiican ugu baranayaan, luqadda aad ula qabsanayaan. Hadhow haddii kale laakiin iyagoo luqadda garanay bay iskuulka gelayaan. Marka macallimada ha isku wareerayaan, isma fahmayaan, waxay ku adkaanaysaa
waxbarashada ku adkaanay intaasaan maanta idin sheer galinayay khayr iyo nabad baan idin rajaynayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.